haweenka ka soo jeeda deegaanada Beledhig Dhoqoshay iyo deegaanka gobolka Togdheer oo kamid ah taageerayaashii cuslaa ee xisbiga kulmiye ayaa xaflad ballaaran oo xalay ku qabteen hotel Ramad ee magaalada Burco waxa ay kaga dhawaaqeen inay ka digarogteen xisbiga kulmiye ee ay sida weyn u taageeri jireen xafladan oo ay misi balaan loo soo agaasimay ayaa waxa ka hadlay xubno ay kamid yihiin Munabaashalow Saado Aadan Ilka Weyne Qadrayoonis Kawsar Guule haddaanu nahay haween weynaha ka soo jeeda beesha Beledhig Dhoqoshay Togdheer xagal waxaanu cadeynaynaa maxay ahayd barnaamijkayaga caawa aanu isugu nimi inuu yahay mid aanu kaga digarogonayno xisbiga kulmiye oo aanu hore u taageeri jirno taageero badan siin jirnay imikana aanu hadhow gadaal ka soo sheegi doono halka aanu digarogonay aanu kala noqonay taageeradii aanu haynay xisbiga kulmiye haddaanu nahay haween weynaha dega Dhoqoshay xagal Beledhig Togdheer iyo meelo kale badan oo loo yahay waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa mowqifkayaga aanu ka taaganahay xukuumadda Maxamed Axmed Siilaanyo horena waan idinku maamay naf magac weeday ma faclaha weedo waa adeerka kelmadaas waa muqaddis meesha aanu u guurayno iyo halka aanu deganayna dubbaanu ka soo sheegaynaa waxaanu leenahay oo aanu u sheegaynaa dawladda Soomaaliland oo aanu xusbo kulmiye u sheegaynaa oo madaxweynaha u sheegaynaa sharaftii qiimaha wale far aanu leenahay oo dambe uma ridayno kulmiye mana raacayno mana yeelino waxaanu tusaynaa dawladda Soomaaliland inaanu nahay haween weyne wax qabsan kara cududooda maalkooda naftooda isku muujin kara waxaanu leenahay la noqdo wixii aan siiseen annaguna waxaanu ballan ku qaadaynaa inaanu waxaanu nahay u muuqan doono haween weynaha Togdheer Beledhig xagal iyo meelo badan oo kale waxaanu leenahay xusbiga annagu halka aanu doono ee aanu raaci karno ayaanu raacaynaa annaga oo wixii aanu lahayn aanu ka weynay wax allaala wax dambe oo aanu ku darsanayno iyo waxaanu noogu maqan yihiin midna ma jirto waxaanu ka sugaynaana ma jirto waxay naga sugayaana ma jirtaan ikhtiyaar baanu leenahay waanu fasaxanahay meeshaan doonaanu ka caga taaganayn waxa kale oo xafladan ka hadlay xubno kale oo kala duwan kuwaas oo dhamaantood tilmaamay inay ka digarogteen xisbiga kulmiye talaabadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmaha soo socda la filayo in wafdi ballaaran oo ka socda xisbiga kulmiye uu soo gaaro magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Kays Axmed Gaale on Cable TV Burco.